السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت شرفت الملك استدريد كجوكتان كسر واد يوتيوب جنالك زينب عنب وولاشين زينب عنب maanta insha Allah barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay ama ku socda dadka ka cabanaya caloosha weyn iyo cayilka faraha badan iyo magarna waliba caloosha maarta caloosha dadka dhibaato ku hayso kaleeto nimanka naagaha iyo dhamaan binaadamkooda nooc doon ha noqdo saqiir kabiir qof alla qofkii ka cabanaya caloosha oo iska weynaatay oo raban inuu iska jaro oo suuq ku jiro garan la ayaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaad daawanaysaa videoganeetid waxaa idin sheegi doonaa dariiq yar oo fudud oo calooshii ku jari doontaan biidnillaahi kariim haddii aad dareynaysid ila daawo videoga oo dhammaystiran idinka oo mahadsan waxaan ka hadlaynaa maanta waxa loo yaqaano intermittent fasting waa nidaam waaye oo qofka bini'aadamka u sameynayo asaga naftiisa u sameysanayo xilli uu wax cunayo iyo xilli uu cunaynin yani diet plan ma aha diet plan waxaa la dhahaa يعني cuntada cunaysid oo waxa cun lahayd iyo waxa cun lahayd aad kala saartay bariis cunay baasta cunay waxa cunaya kaliya ee qudaarta cagaaran tirsan oo caatoobo diet plan ayaa la dhahaa taas ma ahan kan cuntada aragtid oo cuni kartaa laakiin waxa laga rabaa kan wuxuu ku duwan yahay waxa waaye isaga waa nidaam aad u dejinaysid waqti aad wax cunaysid iyo waqti aad wax cunaynin wuxuuna faa'iido u leeyahay oo ugu muhiimsan yahay waxa waaye in uu hoos u dhigo ama la falgalo insulinta inta badan waxaa jirta dadka burburan ama caloosha aad u weyn tahay waxay qabaan wax loo yaqaano insulin resistance ama insulinta ay calooshooda ku badatay markaasna waxay xirtay jirkooda ka xirtay in uu magaranaysaay cuntadii uu shiidmo oo kale ama uu jirka galo for example macnaha cuntada nafaca lahayd oo fitamiinaadka iyo mineral waxaas jirkaaga inuu gol rabay waxay kala qashin ay noqdaan kan se u socoto wax alla waxa cuntid fat ay isku bedelayaan automatic hadii insulinka ay kugu badan tahay jirkaaga yani metabolismkaaga ma u shaqeynaa si sax ah waa halis ah waay oo na jirto oo dadka badana overweight ama caloosha weyn oo kale ku dhaco si marka insulinta loo jirka uga yaraato nidaamkan hadda aan ku sheegay waa waxa kali oo lagu xalin karo marka sameeyay nidaamka insulinta way yaraanaysaa markay yaraatana waxa dhacayso jirkaaga ma garanaysaa in uu dufanki gubto macna faadki iyo baruurti macna xeerti ay shiilanto ay gubato maxay yeelan nidaamkan waa nidaam inta badan asoomi sida adoo soomanta oo kale waa fasting waa qofka bini'aadamka sidiisa banaanba markuu cunto badan cuno maartay maanta hadda wax cuntid hadda kan cuntid oo waqti aadan u lahayn cuntadaada waqti aad u sameeynin oo maanta wax isku cuntid qalaas marka waxa kugu dhacaysa insulinta jirkaaga inay ku badato insulinta si oo loo yareeyo waxa la rabaa in mataqaana cuntada aad marba isku cuni jirtay xilli kasta isku cuni jirtay aad joojisid waxa cunaysaa kaliya 3 waqti maalintii only 3 times a day baa cunaysaa ومركا aad rabin ina mataqaana aad u burnin oo kale to aad is ilaalinaysid ama cayl kor oo kale iska ilaalinaysid oo kale saasa sameynaysa qof binaadamka oo normalka ah waa cuntaanka badan maarta saacad kadib nus saac kadib waxay ku keenaysaa dhibaato aad weyn in jirkaagu faad kalo isla markiiba oo insulintan ay ku badato haddaba hadda ta qof rabo inuu baruurta calooshiisa ku jirto already calooshiisa ku keedsaneedo intan la ekeed inuu iska jaro waxaa laga rabaa nidaamkan inaad raacdid oo mataqaana aad samaystid nidaam loo yaqaano 16 saac ilaa 8 saac loo yaqaano 16 saac macnihi waa soonaanaysaa wax ma cunisid 8 saac gudaheedana waa 24 hours markii la soo qaatay 8 saac gudaheedana waxaad cunaysaa 3 waqti oo mataqaana u dhaxayso 8 saac baa haysta waqti hadda wax cuntid 2 saac kadib wax yar kala cuni kartaa 2 saac kadib wax yar kala cuni kartaa markaasna 8 saac gudaheeda bas 8 saac marka haystid cuntada ina cunto lagu talagalay cunto ku cunaysa for example habeenkii 6 maqribnimo oo kale ama maqribkii 6 saac 6 pm oo kale hadii cuntada cashadaada aad cuntay dhaqsoon baa xiranaysa waxa ka dambeeyso wax kasta dhacaan wax aan biyo ka ahayn ma cabaysid wax haduu moos halkaas yaal ma cunaysid haduu qof wax cunayo uma dhadhamin kartid maxaa la dhihi jiray waa inaad soonkaaga xirataa waa soomada qof sooman oo kale iska dhigaysa laakiin biyo waa cabi kartaa waa iska seexanay habeenkii oo dhan waa jiifaysa subaxdii marka soo kacdid hore wax kama cunaysid ilaa 16 saac baa la rabaa inaad soonaad waa inaad xisaabsantaa marka 6 maqribkii aad mataqaana soom ka xiratay waxaa laga rabaa subaxda dambe 4 saac 5 saac waxay ka dambeeyso waxnimo inaad mataqaana aad cuntada kugu horeysay ee quraacdaada ahaa cuntid adoo biyo kaliya cabaayay wax kale aan cunayn markaad cuntadaas cuntid quraacda ah
لك هذا محل يجري واحد عون كرتا لو ساعة 6 ساعة كده قضاء كلو يرو فضول بس كعون كرتا هذا محل يجري مخرج أنت حلي مركا أصلاً حران لهاد مركي لجارو لحدنا عنتو تقودن بيسي أو سدحات أي عنسا عنتوين كعنسي ونوعه عنتو على عنتو ربط عون كرتا لكني عنتوين كلو عيلو سيد بريسكي بس برك واسكيرينسا إلا هذا ترى ذا ما أنا صومنا مركا أفران وحلو حيقولي ما عنايا يا بدنا تذكر رمضان كما تقرأ حصوصا سومي جري وحكون عجل تاسو ما تنو صومنا سومها واسعاتنا ما تنو صومنا أوكي هذا ما كأفرت به هيك عنتو قول جيال عنتو هالسوق النعات رمضان قصدنا وحكا مدعاء ويدع ذا بكوس يعني هدي هذا وحي بس كل علنا سموت وحي ربتين أسكت أنتوا أسكت علنا سا وحال غير ما عنتو يرفضوا وبريسكي بس ده عني سد وحي أتكلم عند أنت كلنا خضارتي يكلون كي وحاس وبتستيد وما قرنا سا عنتو أسكت يلترن أو محلها balance diet cuntada isku dheelitiran waa very important oo khudaarta iyo waxa la rabaa proteinka iyo carbohydrate-ka iyo vegetable-ka waxaas dhan isku dheelitirto saxankaagu waa inuu isku dheelitiran yahay oo dhinac walbana ay wax walba ka yaalaan marka walaalay qaaliga ah taasi waa taas hadda samaysid muddo yar gudaheeda waa sarkaysa adigii oo calooshaadii soo ururtay waxa kale oo jirta dad doonaysid marka inaad mataqaana intaas in ka badan aad samaysid oo calooshaada isla markiiba ay go'do ya waxa sameyn kartaa wax la dhaho 20 saac ilaa 22 4 hours waxa la dhaho 20 saac ilaa 4 saac waxa la dhaho 20 saac ayaa soomaysaa meesha 16 ka soomaysaa markaan 20 saac ayaa soomaysaa maxaa cunaysaa only 4 hours gudaheeda 4 saac gudaheeda kaliya cunaysaa subaxdii markaad habeenkii for example 6 ama 5 maqribnimo cuntada kugu dambayso cunto waxa laga rabaa next morning ilaa kooda labada duhurnimo laga gaaray aad waxba cunin 20 saac waa isku ka buuxistaa oo aad biyo u cabaysaa marka xilliga la gaaro kooda duhurnimo aad qadada kugu horeyso cuntada kugu horeysa cunta marka cuntuna dhag hadana galabta 5 galabnimo waa inaysan kaaga dambeeynin cuntada labaad aad cunaysid balaankan qorshahan marka kale waxaad cunaysaa kii kale 3 waqti cunaysaa maho kan waxa cunaysaa 2 waqti kaliya cunaysaa duhurkii kooda duhurnimo iyo 5 galabnimo ayaad cunaysaa waxaad cunaysaa cunto alla cuntada rabtid oo laakiin isku dheelitiran oo carbohydrate-ka iyo waxyaabaha lagu cayilan ay ku yar tahay wax yar baad ka qaadanaysaa cuntooyinka lagu cayilay briisko kale 2 saac baa ka cunay baastada far iyo yani wax yar oo kooban ma garanaysaa oo aan saxwaan hiiha isku siinay khudaarta iyo waxaad iyo mataqaana vegetable-ka khudaarta cagaaran macnaha iyo hilibka iyo kalluunka waxaas ayaad macnaha xogaa isku roonanaysaa dad yani tahay dadka oo mataqaana cuntada jecel kii kalena waa iska yareynaysaa okay and then waxaas arkaysaa bil gudaheeda calooshaadii oo soo ururtay maxaa yeelay insulinta markaad yareysid isla markii jirkaaga wuxuu bilaabayo waxa cuntadiina mataqaana aad maanta ma sooman tahay jirkaaga markuu wuxuu sameynayaa inuu shiilo ama gubto xeerta calooshaada ku jirto for example haddaad tiraahdeed habeenkii maxaa la jiro waxaan baxs ka cunaa 2 saac habeenimo cunaya dhahda bay subaxdii kale 2 saac cunaa dad tiraadino wixii waa qasaaro maxaa yeelay nidaamkii ma raacusid 16 saac ama 20 saac xilliga aragtid waa inaad waqtiga dhameystirtaa oo aad soomnaan leed waayo hadda waqti ka hor dhacdid ma siinayso jirkaaga waqti uu ku gubo baruurtii ku keedsaneed calooshaada iyo meelaha laablaabyada iyo meelaha u buuran tahay yani gubi lahayd waqtigaas ma siinayso dariiqadan hadda idin sheegayo waa dariiqada ma garanaysaa ugu xooga badan markii la dhaho iscaateen la dhaho ma garanaysaa ugu xooga badan ay ku jirtaa waa one of the best wax waa dariiq waa oo isku caatay hadda iyada samaysid cunto healthy ah cuntid for sure baruurta dhaqsay kaaga dhacaysaa adoon gym tagin adoon lacag laga qaadin adoon isqasaarin adoon herbal life cabin adoo kan inta cabin adoo maxaa la jiray gabdhihii waxay wadwadeen sheekooda ay wadwadeen maxaa forever product life iyo kan no you don't need all that garaysa lacag waxba iskaga qasaarin simple inta un sameey insha Allah bidna karim waana ka salgaari doontaa sida ku dhaqsiya badanaha caloosha abaayo aboowe kaaga yaraan doontaa runtii waa dariiq aad u fiican aniga kula hadlay markaan bilaabo waa istareema markaan ka seexdana dawaan ka seexda laakiin bariyan hadda waan bilaabay insha Allah ilaahay la garab galo waxaan ku rajaynayaa inaan ka salgaaro bidna karim dhamaantii meel kasta joogtaan aad ay ugu mahadsantiin daawashada video aad daawatay fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka ha moogaanin barnaamijku xiiso geliyo oo faa'iido leh ayaa insha Allah soo bandhigi doona sidoo kale like ta saar commentigan ku muuji wax alla waxaad jeceshahay inaan ka soo hadlo هذا ما سنتي دمانتي انت فيديو الميدان كل مدون دمانتي waxaad idinka tagay khayr iyo baraka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh